maanta oo ay tahay taariikhdu kowdii bishii koowaad ee January 2025 oo waafaqsan kowda Rajab 1446 Hijriya dhaqanka Soomaaliyeed waxay isugu yimaadeen xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Federaalka Dibashin Soomaaliyeed xarunta Muqdisho iyagoo ka hadlay colaadaha ka dhacaya meelo badan oo dal ka mid ah ugu horeyn dhaqanka Soomaaliyeed waxay ka xun yihiin colaadaha ka socda goobo kala duwan oo dalka ah waxayna ka tacsiinayaan intii ku dhimatay oo ay Alla u baryayaan inuu naxariis janno siiyo intii ku dhimatayna Ilaahay inuu dhaawacooda u bogsiyo odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxay u arkaan xasaradaha socda sida in ay caqabad ku yihiin sida nabadda xasiloonida horumarka dalka iyo guud ahaan qorshaha qaranka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxay bogaadinayaan dadaalada ay wadaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ku aadan xal u helidda colaadaha sidoo kale odayaasha dhaqanku waxay bogaadinayaan dadaalada iyo socdaalada shaqo ee wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibashin Soomaaliyeed mudane xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh ee ku aadan arrimaha xal u helidda colaadaha nabadeynta iyo dibashinta haddaba odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayagoo ka duulay mas'uuliyadda saaran waxay baaqan ay soo jeedinayaan hoos ku qoran kow odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxay ka xun yihiin dhiigga xaqdarrada ku daadanaya ee ay sababeen colaadaha sokeeye ee dalka jira odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxay cadeynayaan in ay dhaqanada xasaradaha ee socda ay ka soo horjeedaan shariicada islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka waxay si adag u dalbanayaan in si degdeg ah loo joojiyo colaadaha ka socda guud ahaan waddanka odayaasha waxay soo jeedinayaan in la ilaaliyo badqabka bulshada Soomaaliyeed iyo wada noolashahooda lagana fogaado wax walba oo dib u keenaya midnimada ummadda Soomaaliyeed dhaqanku wuxuu ka dalbanayaa maamulada iyo waxgaradka ku dhow goobaha colaadaha ka socdaan inay dhexdhexaadiyaan kana shaqeeyaan howlaha nabadeynta xasiloonida iyo horumarka dalka odayaasha dhaqanku waxay mar walba diyaar u yihiin inay si wada jir ah oo mas'uuliyad ay ku dheehan tahay ay uga shaqeeyaan diminta colaadaha iyo nabadgelyada howlaha ku saabsan ugu dambeyn odayaasha dhaqanku waxay dalbanayaan qabashada gogol nabadeed iyo madal dib heshiisiin si xal loogu raadiyo colaadaha socda odayaashuna ay ka qaadanayaan kaalin mug ah oo xooggan insha Allah taala hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh